هذا الكريه لكن أنا كسر نور رمضان وكذا وين نعلاه صح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا أصحابي ملول بوجوكتان عاو حرمنا إن الفيديو جايرك هذا أركيسان إن لما كلمة كده هنو يوحي إنه كلا صعنا ما دام الصومالي نهاي شعب كأن نهاي لأن يرضي أن نهاي أن وح بدن وكأجنها يجرى الرمهان يوحي كجرة ليس لا أحمر يمال مهان واحد عضي هذا كور هرتا إنتانا نوجد بين دعوين كي وحيابي جوب جوج أنا وهاي إنتانا نوجد بين واحد جرتي إن مال مهان لو وضي يروح أركيي joogo wadamada kulay Soomaali galbeed meel kamid ah oo godgeysay galabta u soo jawaabaya dhahaya naxariisa u muujinaha dadkan naxaya iska dhiganaa hadaad ka naxaysan meelaha ay ka yimaadeen u celiyo oo ku biilo lacag u dira hadaad ka naxaysan dad loo naxamaahan dadkani asoo dhahaya iyo godgeysay oo soo qaatay clip dhalinyaro Ethiopian oo dib loo geysanayo oo yaani la dhibaataynayo asigoo yar ka xum oo la qeyraysan soo dhigan labadaas iyo waxay inka ay xaqiisa baahasho jirtaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo wax badan baan la qareebay la bariis cunay la wadan maray nimanka la yiraahdo Ethiopianka laba u kala qaadan Ethiopianka waa labo ma amxaarka loo yaqaano amxaarada ama Maariya ma iyo Tigre ma soo oromada amxaarku ku qiyaani ma kuna dili ma laakiin hay taaban ku taaban maayo hadaad haysana wuu kula cunaya haduu xaalkaagu u bigwaan dhinac iga maro kula si raganimo kula hadlaya Tigreega waa kadalika waa sidoo kale waxa soo hartay dhalinyaradan oromada ah anigu shakhsiyan ka oday xursha ahaan su'aal hadaad iga weydiiso oo dhinacay jirta ay dhehleen labadaas nin anigu waxaan taageersanaa ninkaas ka soo jeeda gobolka Soomaali galbeed yiriyaan asxaan loo sameeyay ninkii asxaan u sameeynaya hoygooda ha ku beelo baan anagu jira saddex dhacdaan goob joog u soo ah waxa dhacday wadamada carabta waddan kamid ah Saudi Arabia anagu joogna ninba inoo yimid habeen dhibaataysan diif iyo duruuf ay ka muuqato Ethiopian buu ah waana soo dhaweynay Soomaali badan baan hayna waa lagu kala jabay Soomaali galbeed anagu qaar ahaan ayaa nagu jiray oo yaani yiri ninkan waa dilaynaaba orama fursadan kula ayn marka isugu xumaanay ninkii waan daryeelnay dadkayni heer gobolka ahay buu codkii u batay ninkii waan dhaqaaleynay meel seexdaaseen habeenkii labada goor waqti u baxay la garan maayo wixii telefoon inoo helay buu la tagay taas waxaan dhihi karnaa waa shakhsina waa u qaldamaa waxa dhacday waqtiyada waqti kamida way badawdaha taariikh dhaweeye 2022 bishii labaad Saudi Arabia xabsi isla gal xabsiga wixii ku soo galeen iyagu Soomaali baan nahay waayo wadanka Ethiopia dhibaatooyin badan ka socday dadka lama tarxiilay Ethiopianka xabsiyada ay ka buuxeen Soomaalida waa la gudbinay sida daraadeed waxay sheegtaan in Soomaali yihiin si lagu tarxiilo waa oromada bisa sheeganaysa xabsi baa la isoo kanya keenay iyadoo la moodo Soomaali iyagu waxay noqdeen 300 iyo jajab annaguna waxaan ahaynaa 120 Soomaalidayna 460 baan isku ahayn hadaba dhigayso waa 3 jibbaar bi ayagu nooyeen 3 jibbaar bi naga badan yihiin magacayna ayaynu hoolka kula jiraan magacayna ayaa lagu dhaqaaleeyaa hadii la qaadana lagu qaadaya hadaan la qaadayna in kasi markii daba fishilmeen oo la kala saaray oo dhibaatooyin ay geysteen ay ku fishilmeen haddana codka iyo ficilka ay meesha ku joogaan waa Soomaali habeen annagoo jiifna iska hurudna wax walwali dhibaato in haysan tarxiil sugayaalo anagayba maxaabiis ah iska dhibaataysan saddex waan oroma kaliya hadaba hadalkiisa uu dhageyso kuma jiro Ethiopian kale kuma jiro Anfaraan ku jirin Amxaaraan ku jirin Tigre aan ku jirin Uraagaan ku jirin Kushanguliyan ku jirin cid u helisa male waa oroma kaliya magac Soomaaliyeed in goosha ku jiifan waa hoolkii Soomaalida magaceedu ku qorneed oo laga tarxiilay meesha ay joogaan 330 koodi annagoo jiifnay gab nagu yiraahdeen habeenkii xitaa cawaanimadooda ma oga meeshu inay Saudi tahay laga awood badan yahay god ay ku jiraan xabsi ay ku jiraan kaamirada ay ku xiran yihiin oo wadan horumarsan uu yahay xitaa kuma in xisaabtaman gab bay nagu yiraahdeen dad baa indhaha ku beelay maxaabiis awal aha dad baa lugaha ku beelay dad ilko ka jajabeen dad dhegaha ku beelay sanka iyo dhegaha dhiig ka soo deeyay 300
iyo soddon baan na qabatay annagoo 120 ah meeqaan ahayna 120 iyo 306 iyo soddon marka nimanka oromada la yiraahdo meel ayay laayihiin cuqdadna waa ay qabaan annagu waxaan qabaa meel alla iyo meeshii lagu arka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiigooda waa idii xalaal orome hadduu yahay Etoobiyaanku asaanba ku rabin ka kaleeto amxaarka iyo tigreego iyagaa noloshaada ma raba iyagaa gudbay safar ay kugu yihiin dhilqaha aan kaa bixayno waxa weeye oromada meeshaad ku aragtaan dhiiggiisu waa idii xalaal taas waa qodobka labaad waxaa jira maamul goboleedyo Soomaaliya ah oo aan awoodin in xitaa ay la hadlaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddex magac ilaahay baan ku dhaartay maamul goboleedyada inaan sheega ka dhawaajiyo ma rabo haddaad isqabataan mid oromaya aad isdishaaneed saldhigga isla tagtaan adigaa lagu xirayaa taas maxaa koos gareeyay baqdin laga baqayo dabcan anuu sida isleeyahay ka xuursho ahaan maskaxdii markaa la tashada baqdin laga baqayo dowladda ka dambaysa cabsid ilaahay baa nagu leh wasaqda ha la iska dhaqo injiray ha nalaga xaaqo ama shacabka ha loo fasaxo waxaa jira maamul goboleedyo ku dhawaaqay inay tarxiilayaan gawaari ku cabeeyey meel luuqa in la geystay teleefoonadii iyo xoogaa yaroo lacaga laga qaatan dib loogu soo daynaa magaaladii subaxdiiba meelaha ka xamaaliya duhurka damba la qabanayaa waa la kaxaynayaa meelahaas la geynaya waa la soo baaranayaa waa la soo daynayaa maxaana lagu qabanayaa lagu shaqo galay waa la tarxiilayaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan meesha ay xooga ku haystaan oo Soomaali galbeed taasu waqtigeeday gaaraysaa waqtigeeda bay gaaraysaa godob iyo godob iyo nikay galay nikoo ka galay taas waa taa laakiin inta aad xorka u tihiin ha laga dhaqo Ethiopian ha laga dhaqo Oromo ha laga dhaqo injiray anagu waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel alle meesha ku aragtaan doox حلال بإيديهم والسلام عليكم ورحمة الله